سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوداشا قيمها بدن وسلامنتين مركز صوت دونو دافيد كجوكتا كسو دوادا برنامج كينا ورارك أخباراتك أفلامت هندية دمان شركتها أنا قصو قادم دون داوداشا قيمها بدن قضوبة برنامج كاكم مغلد دونتان وحا كميدا سيدا أيومان تكفر من فيلم كإندو كي جواني كيار أدواني هقامية كتاهيد أو تياتر لصاري شروطي حسن مرول بوحي كهش على شقين ترفيه تيجا هريكت قراشن ولا أقادين أفر وجو كومتري دون كريشفور جادو oo soo laaban doona rasmi filimka Mayday Ajay Amitabh Bachchan hogaamiyaal ka yihiin duwistiisa bilaawatay xilliga la daawan doona oo la shaaciyay filimkan Amir Khan wiilkiisa Junayd Khan oo helay tirishada la sameyn lahayd filimkiisa koowaad Salman Khan iyo aragtidiisa koowaad filimka Anthem ee seedigiisa ayuu Sharma hogaamiye ka yahay oo la soo bandhigay qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan daawadayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada channelkeena sidee ayuu maanta ku furmay filimka Indo Ki Jawani Kiara Advani hogaamiye ka tahay oo filimkan oo tiyaatarada maanta la saaray Kiara Advani filimkan hogaamiye ayay ka tahay Indo Ki Jawani ayaa maanta si rasmi ah tiyaatarada gudaha Hindiya loo saaray waxaan laga daawanayaa inta badan magaalooyinka Hindiya ugu waaweyn balse waa filim iska dhexaad oo aan la filin inuu box office ka wacdaro ka dhigo fakta hore filimkan sidaa darteed filimka Indo Ki Jawani wuxuu ku furmay 5% subaxdii hore xilliga Hindiya wuxuuna bilaabashada ugu wanaagsan ka sameeyay magaalooyinka kala ah Mumbai, Pune, Delhi iyo Bangalore balse mashruucan sida uu ku furmay waa mid aad u liidato qiyaasta xilli hore waxay muujinaysaa in filimkan maalintiisa koowaad uu keeni doono 50 lag ilaa 1 crore intuu dhaxayso inuu keeni doono filimkan ay u badan tahay filimka Indo Ki Jawani waxaa director-ka Abir Sen Gupta waxaana Kiara Advani ku helay filimkan atoora lagu magacaabo Aditya Sil waana filim shactiro jahawareer iyo fariinta shukaansi online iskugu jira laguna kalsoon yahay reer magaalka inuu soo jiidan doono filimkan Hrithik Roshan oo la ogaad in afar waji ku matali doono Krish Forjadu oo soo laaban doono waxaa horaanta sanadka cusub dowis lagu bilaabi doonaa filimka weyn ee taxanaha superhero-ga Krish For maadaama director Rakesh Roshan sheekada filimkan sidoo kalena Hrithik Roshan isagana diyaar garowgiisa mashruucan oo soo idlaa kaliya waxaa dhiman shaqada Krish For inay bilaabato haatan shabakada Bollywood Hangama waxay ogaatay in Hrithik Roshan filimkan Krish For ku matali doono afar waji ama afar door oo kala duwan waliba lama xaqiijin wajiyadan mid ka mid ah xumaan ama laadar ayuu ku matali doonaa sidoo kalena qoyska reer Roshan waxaa laga soo xigtay in Krish For uu ka soo muuqan doono doorka Jadu oo aad loo wada jecel yahay waxa intaas dheer labada actress mashruucan wax ka jira doonaan mid kamid ayaa la xaqiijiyay inay superhero ku matali doonto doorkeed awood loo yeeli doono ficilo halis ahna sameyn doonto waxaa maalmo ka hor la ogaaday Kiara Advani in Krish For lagu soo daray balse lama xaqiijin doorkeed inuu superhero noqon doono iyo in kale director Rakesh Roshan ayaa sheegay in Krish For si caalami ah loo sameyn doono lacago fara badan ku bixi doonaan mashruucan waxay shaqadiisa socon doontaa 1 sano ama inta 2021 lagu guda jiro qorshahan wuxuu yahay 2022 in la daawo saddexda fasax ay Hindiya ka jiraan sanad walba mid ka mid gaar ahaan in Diwali ama Christmas 2022 ayay doonayaan reer Roshan in Krish For la daawo Salman Khan iyo aragtidiisa koowaad filimka Anthem ee seedigiisa ayuu Sharma hogaamiye ka yahay oo la soo bandhigay megastar Salman Khan wuxuu si rasmi ah duwista filimka Anthem uga bilaabay 6 bishan December waxayna shaqadiisa socon doontaa waxayna shaqadiisa ka socotaa magaalada Mumbai ayadoo Sallu filimkan ku jilaayo askari Punjab Zinga ama kuwa duubka Zinga xirtaan filimka Anthem waxaa hogaamiye koowaad ka Salman Khan seedigiisa ayuu Sharma oo filimkan ku jilaayo gangster awood badan halka Sallu atoore caabi ka yahay kuna matala in loo xil saaro seedigiisa gacanta inuu ku soo dhigo marar kala duwan ayay filimkan labadan isku fariisaari doonaan haddaba hadalhaynta filimkan Anthem si sare loogu qaado waxaa la soo bandhigay aragtida koowaad iyo muuqaalka kooban oo Sallu doorkiisa u gaarka asagoo si heer sare ah u xarakeynaya qof walba oo muuqaalkan daawaday si weyn ayuu kaga helay Anthem duwistiisa Salman wuxuu wadi doonaa ilaa horaanta sanadka cusub inta badan muuqaaladan uu sameynayo waxaa kaloo soo muuqan doonaan shaqad ahaan seedigiis ayuu Sharma sidoo kalena haatan waxaa la adkeeyay ammaanka goobta duwista mashruucan ka socoto ee film City ayadoo la diidan yahay in sawiro iyo muuqaal laga soo xado goobta kadibna baraha bulshada lagu soo bandhigo goosgooska filimka AKFCAK oo si weyn looga helay superstar Anil Kapoor iyo film sameeyahan ayaa bilowga toddobaadkan baraha bulshada qabsadeen kadib weerar dhanka afka isku qaadeen ugu dambeyntii waxay sheegeen in ujeedkoodu inuu ahaa hadalhaynta inay u sameeyaan filimkooda AKFCAK filimkan AKFCAK waxay Anil Kapoor iyo Anurag ku matalayaan laba lid isku ah si adagna u xifaaltamayaan wuxuuna Anurag afduubanaya Sonam Kapoor oo Anil Kapoor gabadhiisa ah filimkan ku jirto kadib Anil baadagob ayuu u galayaa gabadhiisa halka Anurag dhibaato Anil marayo filimkan ku dul sameynayo filimkan waxaa director ka
Vikram oo hore u sameeyay filimada kala Lotera Tarabed iyo kuwa kale waxaana si weyn loogu helay goosgooska mashruucan xiisaha badan laga soo bandhigay filimkan AKFC waxa online ahaan loogu daawan doonaa barta Netflix 24 bishan December sidoo kalena waxa door muhiim ah ku leh filimka Anil Kapoor wiilkiisa Harishvanti Kapoor iyo walaalkiisa soo saaray Bonnie Kapoor ayaa mashruucan muuqaal kooban kaga soo muuqan doonaan Varun Dhawan ayaa naga qabto markaan wuxuu rabaa filimkii hirgale Bedmian Jyotirmyan inuu dib u sameeyo waxaan si joogto ah idin kula wadaagnaa wararka ku aadan filimka Colin number 1 ee Varun Dhawan iyo Sara Ali Khan hogaamiyaal ka yihiin kaasi oo 25 bishan la daawan doono waxaana sheek ahaan laga soo minguuray filimkan Colin number 1 ee Govinda iyo Karishma Kapoor sanadkii 1995 wada sameeyeen sidoo kale super hit ka weyn noqday filimkaas haatan waxaa la ogaaday Varun Dhawan inuu dib u sameyn doono filim kale ee super star Govinda ku faano mid kalena ma ahan waa filimkii mashruuci hirgeli oo hit ka weyn noqday 98 kaasoo ah Bedmian Jyotirmyan waxaana filimkan Govinda la hogaaminay mega star Amitabh Bachchan waxaa xusid mudan dib u sameynta filimkan Bedmian Jyotirmyan in loo bixin doono Bedmian Jyotirmyan 2 sidoo kale sheekadii asalka ahayd ayaa la soo qaadan doonaa sida laga soo xigta soo saare JK mashruucan Varun wuxuu ka howlgali doonaa sanadkan nagu soo fool leh inta lagu guda jiro waxaana director ka noqon doona Varun aabihiis David Don oo hore u sameeyay isla filimkan asalkiisa 22 sano ka hor Varun iyo aabihiis David Don waxay hore dib u soo celiyeen filmadii Judwa ee Salman Khan 97 sameeyay waxayna qoyskan soo celiyeen Judwa to 2017 la daawaday haddana Colin number 1 oo David Don 95 sameeyay ayuu soo celiyay markaan saddexaadna waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan Bedmian Jyotirmyan oo 98 hid weyn noqday inay dib u soo celiyaan sheeko ahaan lana casriyo waxayna qorsheynayaan horaanta 2022 inay la imaan doonaan sida darteed Varun wuxuu u soo dhigtay filmada aabihiis Govinda iyo Salman Khan u sameeyay 90maadka inuu ku soo celiyo soona casriyeeyo Shruti Hassan mar walba waxay ka heshaa la shaqeynta Ravi Teja xiddigta Bollywoodka iyo koonfur Hindiya ka dhaxaysa Shruti Hassan ayaa ku faraxsan la shaqeynta Maharaja Ravi Teja maadaama labadana isla soo wadaan filimka weyn Crack kana mid yahay mashruucda sanadka cusub 2021 koonfur Hindiya ku daahfuran doonaan dhawaana shaqadiisa filimkan way soo ilaatay Shruti Hassan iyo Ravi Teja waxay maalmo ka hor magaalo xeebteedka loo dalxiis tago goobaha ku soo duubayeen hal hees oo lagu soo gabagabeynayo duubista filimkan Crack waxayna xiddigtan saxaafadda u sheegtay inay xilli walba aad uga hesho la shaqeynta Ravi Teja Shruti Hassan waxay tiri markii aan Ravi Teja film la sameeyay kalsoon dhameystiran ayaan helaa goobta shaqada waan ku raaxaystaa filimkan waxaan ku kalsoonahay inaan saameyn ku yeelanayo door ahaan sidaa darteed ma jirto wax aan ka jeclahay inaan mudan Ravi shaashada kala soo muuqdo dhan walba ayuu ii dhiirigeliyaa xiddigsan oo hadalka sii wadato waxay tiri daawada filimka Crack faysadasan garatay ee sanadka cusub uu ku beegan waxaan hubaa inaad ka heli doontaan waa film qoyska loogu talagalay sidoo kale lehna madadaalo dhameystiran iyo dareen qeyro badan waana ku faani karaa sameynta filimka Crack waa mashruuc 60 ee Ravi Teja hogaamiye ka noqdo wuxuuna ku matalaa askari mayad adag halka Shruti Hassan xaaskiisa ku jilayso sidoo kale filimkan waxaa door muhiim ah ku leh Farashami iyo kuwa kale waxaana director-ka Gobijanda qorshahan wuxuu yahay in la daawado 14 Janaayo 2021 ama toddobaadka labaad ee bisha Janaayo horaanta sanadka cusub ayaa tiyaatarada la saari doona filimkan Amir Khan wiilkiisa Junaid Khan oo helay atirishada la sameyn lahayd filimkiisa koowaad waxaan hore idin kula wadaagnay superstar Amir Khan wiilkiisa Junaid Khan inuu Bollywoodka ku soo biirinayo sidoo kale shirkadda Yasharaj filimkiisa koowaad u maalgelin doonta haatan waxaa la ogaaday atirishada Amir wiilkiisa mashruuciisa koowaad la sameyn doonto maadaama filimkan dhawaan shaqadiisa bilaabanayso Rini Banday oo ku caan baxday sameynta filimkii blockbuster-ka weyn noqday Arjun Reddy ayaa atirisho koowaad ka noqonaysa Junaid Khan filimkiisa koowaad atirishadan heshiis 3 film oo sameynayso shirkadda Yasharaj ayay kula jirtaa maadaama ay Bollywoodka iyaga ku soo dareen kuna soo caan bixiyeen filimkii Jabshe Jordar iyo Ranveer Singh hogaamiye ka yahay sida darteed filimkeedii labaad shirkaddan iska leedahay Junaid Khan ayay la sameyn doontaa Junaid Khan filimkiisa koowaad waxaa director-ka Siddharth Malhotra sidoo kale shaqadiisa waxay bilaaban doontaa horaanta sanadka cusub si dabiiqada sanadka dambe loo daawado sidoo kale waxaa la isla dhex maray atirishada lagu magacaabo Sharvari oo filimkii Bunti Awa Bolbi 2 shirkadda Yasharaj iska leedahay ku soo caan bixinay inay door muhiim ah mashruucan ku yeelan doonto taasi oo ka dhigan in Junaid Khan filimkiisa koowaad laba atirish la sameyn doonaan Junaid Khan waa 27 jir waxaa lagu xasuustaa sanadkii 2014 inuu director caawiye ka noqday filimka BK Abis hogaamiye ka ahaa kaasi all time blockbuster noqday haatan si toos ayuu Bollywoodka ugu soo biiray asigoona filimkiisa koowaad hogaamiye ka noqon doona shirkadda Yasharaj
iska leedahay ayaa qaadatay mas'uuliyadda soo canbixinta wiilka Amir Khan aabaha u yahay. Rasmi filimka Mayday Ajay Amitabh Bachchan hogaamiyaal ka yihiin duubistiisa bilaabatay xilliga la daawan doono filimkan oo shaaca laga qaaday. Superstar Ajay Devgan ayaa si rasmi ah baraha bulshada shaaca kaga qaaday in filimkiisa weyn Mayday ee uu soo saaray director hogaamiye ka yahay duubistiisa si rasmi ah magaalada Hyderabad maanta kaga bilaabatay. Waana jadwal aan kala go' lahayn maadaama ilaa dhamaadka bisha Janaayo shaqadiisa filimkan socon doonto. filimkan Mayday Ajay waxaa ku weheliyay mega starka Amitabh Bachchan iyo atirishada lagu magacaabo Rakul Preet Singh, waana sheeko waaqic ah oo ka hadlaysa arrimaha diyaaradaha dagaalka Hindiya iyo kuwa rayidka. wuxuuna Ajay ku matali doonaa sidoo kale wuxuu ku matali doonaa Ajay filimkan duuliyo sidoo kale waxaa garab siin doonta Rakul Preet Singh. Ajay Devgan sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in Mayday la daawan doono Eid 2022 ama Eidul Fitr 2022, wuxuuna si rasmi ah Devgan u calaamadeystay in filimkiisa tiyaatarada la saari doono 29 Abriil 2022 si uu kaga faa'iideysto toddobaadka Ciidul Fidriga iyo fasaxa maalinta shaqaalaha Hindiya oo isku soo beegmi doonto waqtigaas. Ajay Devgan wuxuu yiri waxaan ku faraxsan inaan ku dhawaaqo inay bilaabatay duubista filimkiga Mayday oo noqon doona mid shaqadiisa hal mar laga bixi doono oo aysan hakan doonin shaqadiisa. waxaan duco weydiisanayaa waalidkayga oo badan oo garab soo siiyo iyo taageerayaasheeda mar walba i garab taagan qoyskayga iyo kuwa wanaagayga jecel. waxaan idinla wadaagaa in Mayday la daawan doono Abriil 2022. waxaa halkaas inoogu dhan barnaamijkeen. fadlan asxaabta inta badan muuqaalka way daawataa subscribe noma saarto. fadlan dhiirigelintiina inoo muhiim. fadlan subscribe saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.